munaasabad culus oo ay ka soo qayb galeen boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayna ku muujinayaan dareenkooda iyo rabitaankooda taageerada mugga iyo miisaanka ay u hayaan musharaxiinta xisbiga kulmiye uga qayb galaya doorashada madaxtinimada ee kala musharaxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici sidoo kalena lagu hambalyeynayay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo habkii iyo nidaamkii ku dayashada mudnaa ee uga tanaasulay tartanka doorashada madaxtinimada dalka xafladan iyo ka qabsoontay barxad ballaaran oo ku taala Hotel City Palace ee magaalada Burco ayaa ahayd mid loo soo qaban qaabiyay si heer sare ah waxaana goobjoog ka ahaa siyaasiyiinta madax dhaqameedka aqoon-yahano dhalinyaro haweenka iyo hoggaanka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Xasan Mataane Jaamac Xaaji Axmed iyo xubin ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa sharaxay ujeedada munaasabadan iyagoo geesta kalena ka waramay xuduudda taageero ee xisbiga kulmiye ku haysto gobolka Togdheer inuu yahay mid aad u sareeya arrinteenu waxa weeye waa hambalyo iyo taageero hambalyadu waxa weeye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaynu hambalyeynayna dadkan ay taageerayaan xisbiga kulmiye musharaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici ayaa la taageerayaa oo la soo dhaweynayaa oo musharaxnimadooda aad kalsooni loogu qabaa xafladani waxay ku saabsan tahay inaynu muujino taageeradii xisbiga kulmiye iyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay ku lahaayeen gobolka Togdheer inaan ay sideedii tahay aanay waxba iska bedelin oo bahweyntii reer kulmiye ay sidoodii isugu xidhan tahay shirka madaxweynaha furay wuxuu ka aqriyay khudbadii xiritaanka isagoo xubin golaha dhexe ku metelayana wuxuu ka codeeyay shirkaasi oo uu codeeyay musharaxiintii tartamaysay miyaynu aqbali karnaa mise aynu odhan karnaa madaxweynaha qaranka ayaa wuxuu fadhiyay oo xidhay oo furay oo uu ka codeeyay shir xaaraan oo afduba waxaan leenahay waa mada qaar ka mid ah madax dhaqameedka duqeyda dhalinyarada iyo haweenka oo hadalka isaga dambeeyay ayaa sheegay inay si niyad samiya ku taageersan yihiin musharaxiinta Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici iyagoo geesta kalena hambalyo u diray madaxweynaha qaranka taladu waxay ku soo noqonaysaa sidayna wuxuu dooranay oo kale xisbiga kulmiye ha noolaado ha jiro markuu ugu horeysa inuu ku hambalyeynano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo taageero buuxdana aynu ku taageerayno gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labadaba Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaan leeyahay labada musharax ee loo gartay ee xisbiga kulmiye u gartay waynu taageeraynaa cafis weydiisano waxaan leeyahay xisbiga kulmiye maanta waxa aad qabatay guulba kaaga dambaysa ciddii maanta isu soo taagtay musharaxnimadiisa ee loo gartana taageero ballaaran baynu haynaa haddaynu nahay gobolka Togdheer aad iyo aad u mahadsantihiin waa madaxweynaha qaranka mustaqbalka ee soo socda weeye Muuse Biixi waanu dooranaynaa codkiisii baan u haynaa mid ka badan baa loo hayaa wuu ku helayaa xusbiga waa ku mintidaynaa waa dooranaynaa madaxweynaha halkuu joogo iyo taladuu hayo yaynu raacaynaa kuwa la doortay yaynu dhisaynaa xisbiga kulmiye waxaynu ka barannay askarinimadu qiimaha ilaahay waynu ka barannay waa tii dalka xoreysay soo maaha waa tii dalka xoreysay waa tii gobonnimada keentay waayahay waxaynu ka barannay in la jabo oo haddana la kaco waxaynu ka baray in la dhaco oo 30 cod lagu dhaco haddana madaxweyne la noqon ka baranay ujidiidinay oo taageernay oo taageerina ciddii inoo dhalay ee madaxweynuhu
inoo tilmaamay ee inoogu hagay ee uu doonayay inuu waddadiisii mariyo oo ah Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiis weligay waa ku jiray imagana waa ku kalsoonahay kana hari maayo Silaanye ya Muuse Biixi midnaba ka hari maayo waxaanu nahay sayidxe war haddaynu nahay dadka meesha jooga magac kastaba aan sheeganay ee magac sheeganaya ma abaal gudnaa war ma abaal gudnaa aytay u bixinayeen dhagahooda ee dahabkooda u bixinayeen in annaguna maanta aanu u bixinno Muuse Biixina barbar taagnaano baanu ballan Ilaahay ku galla manhajka maanta halkan aynu u joogno waxa weeyaan taageerada musharaxiinta xisbiga kulmiye ee loogu codeeyay codka aqlabiyada ee xortiya xalaasha Muuse waxaan ku qaadanay askarinimada askarigu waa ka gambara fadhiya waa ka lagu hurdaa waa ka nabadda lagu maraya waa ka la isku soo dhaweynaya waa ka dalka lagu raaxaysanaya munaasabadan ay ahayd mid culus oo xisbiga kulmiye ku soo bandhigay dowlatuska iyo cududda taageere ee gobolka Togdheer ayaa ku soo dhamaatay jawi degan Absa Farax Abdullaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.